kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa Jeegaan Channel TV oo ka dhageysataan bartaanu ku leenahay YouTube-ka iyo waliba aaladaha social media iyo website-da iyo wargeysyada kale ee aanu leenahay bahwadaagta xagga wararka. daawadayaal maanta qodobadan wararkeena inoogu hayno waxa ugu waaweyn wadanka Jarmalka wasiirkiisa arrimaha dibadda oo booqday wadanka Turkiga halkaasi waad moodo in cilaaqaadkoodii intii muddo ahayd si xumaanayay uu soo hagaagayo labada wadan cilaaqaadkoodu waxa uu xumaaday kadib markii inqilaabkii fashilmay uu ka dhacay wadanka Turkiga. waxaanu kaloo inoo haynaa maanta diyaarad 160 qof saarayd oo dirqi ku badbaaday iyadoo dadkii saarnaaba. waxaanu kaloo inoo haynaa weliga ma aragtay qof muslina oo khamaarka gabadh muslimada aan idhaahday oo khamaarka ay sidato aawadeed looga celiyay inay muusig dhageysato ama ay muusig meel lagu dhaansayo dhaansiga wax ka ciyaarto. qodobadaas oo dhan waxaynu ku bilaabaynaa. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Jarmalka Signal Gabriel ayaa booqasho ku tegay wadanka Turkiga waxaana kulan uu la qaatay maanta wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga ninka lagu magacaabo Kafasik Kulu oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo u dhaxeeya labada wadan. intii muddo ahayd labadan wadan ayaa cilaaqaadkoodu si kala fogaanayay iyadoo taasi sababtay inuu Turkigu guud ahaanba ka sii fogaado wadamada Yurub oo uu midowgii Yurub ay cilaaqaadkoodu aanu aad u wanaagsaneyn intii muddo aba. ayaa maanta booqashadan waxa laga yaabaa la yiri inay jid cusub u furto labada wadan. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Jarmalka Signal Gabriel ayaa booqashadiisan waxa uu aad xoog u saari doona oo diiradda lagu saari doona ninka journalistaha dhalasho ahaan ka soo jeeda wadanka Turkiga ee haysta jinsiyadda wadanka Jarmalka ee ku xidhan wadankaasi tan iyo horaantii sanadkii 2017. ninkaasi oo ay imika ka codsan doonaan baa la leeyahay in loogu soo wareejiyo xabsiga maxkamadda ku xukuntay inta uga dhiman si uu ugu qaato wadanka Jarmalka. waxaana laga yaabaa la leeyahay inay haddii uu taasi dhacdo oo cilaaqaadka Turkiga iyo Jarmalku ku soo noqdo sidii caadiga ahayd. wadanka Turkiga oo iminka saameyntiisu aad u muuqato oo isku ballaarinaya wadamada caalamka islaamka iyo qaaradda Afrika ayaa hadda waxaad moodaa inuu toddobaadadan xaaladiisu u soo jeedo xagga Yurubiyaanka kadib markii toddobaadkii hore ama toddobaadkan dabayaaqadiisii uu madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la kulmay madaxweynaha wadanka Faransiiska. ninkaasi oo ay ka wada hadleen sidii wadamada xiliqaadkooda dib loogu soo celin lahaa oo ay yiraahdeen waxa muhiima Turkigu inuu ku soo noqdo wadadii uu ku samrayay ee ku sugayay inuu kaga mid noqdo midowga Yurub. waxaana hadda laga yaabaa la leeyahay in Yurub maadaama oo Mareykanka cilaaqaadkoodii aanu imika wanaagsaneyn Ingiriiskuna uu ka baxay inay imika noqoto xaaladu mid u eeg inay u baahan yihiin iskaashi quwadeed oo aanu Turkigu kaga fogaanin Turkiga oo imika xagga Ruushkana u sii dhawaanaya. waxaa kaloo iyaguna wadanka Jarmalka maanta laga soo sheegayaa inay ka jiraan daadad xoog leh oo ku fatahay gobolada qaar ay ka mid yihiin Gosondofar iyo gobollo kale. daadadkaasi ayaa iyaguna waxa la sheegay inay waxyeello meelo badan gaarsiiyeen. daawadayaal qodobkii wuxuu ahaa aynu ku soo qaadanay Jarmalka iyo waxyaabaha maanta ku cusub iyo guud ahaan qaaradda Yurub qaybo kamida. wadanka Austria ayaynu imika u gudbi doonaa. wadanka Austria ayaa isaguna waxa ku cusub maanta waxyaabaha ku cusub wararka ka soo baxaya waxa kamida xisbiga yar ee la yiraahdo Guruunaha iyo xisbiyo kale oo ay iskaashi leeyihiin oo berigii hore dhaweyto doorashadii lagaga adkaaday ayaa iyagu waxay wadaan olole aad u weyn oo mudaharaada inay kaga hor yimaadaan shuruucda cusub ay soo saarayso qaxoontiga iyo ajnabiga ku jahaysan ee wadanka laga soo saarayo ay soo saarayaan xisbiyada wadaagga ah ee imika wadanka haysta. waxaana toddobaadka dambe oo maalinta Sabtida ay u balansan yihiin mudaharaada aad u waaweyn. waxaana laga yaabaa la leeyahay inay mudaharaadadaasi wax ka bedelaan sidii hore ay u socdeen labada xisbi ee wadanka imika xukuma. waxa kale oo la leeyahay waxa dadku aad imika u daneynayaan oo ay mudaharaadada aad ugu sii badanayaan kadib markii labada xisbi wadanka guuleystay ay joojiyeen
dadka Australiyaanka ah carruurtoodu qurbaha meelaha kale wadamada kale wax ku bartaan ama dhaqaalaha lagu bixiyo ee dawladdu siiso lacagta ay ku bixiso ee ku siiso carruurta meelaha kale wax ku barta ay sharci ka soo saareen oranaya waa inuu qofku wadanka gudihiisa joogo oo kaliya taasi ayaa keentay imika inay dad badan oo Australian ama dadka asalkoodu ka soo jeedo wadamo kale ay ku adkaato oo caqabadna ku noqoto taasana imika keenaysa baa leeyahay mudaharaadadan ay bilaabeen xisbiyada ka soo horjeeda xisbiyada wadanka xukuma Austria diyaarada ay leedahay shirkadda la yiraahdo Canadian Air oo ka soo duushay maalintii Jimcaha gelinkii dambe magaalada lagu magacaabo Cancun oo ku taala wadanka Mexico ahna magaalo loo tago dalxiiska ayaa dad badan oo ay sidoo oo tiradooda lagu sheegay 168 qof iyo 6 kruuga diyaaradda ayaa halis ku galay kadib markii diyaaraddaasi ay soo caga dhigatay gegida diyaaradaha ee magaalada Toronto ee wadanka Canada diyaaraddaasi oo falaydkeedu ahaa BO737 ayaa waxa la sheegayaa inuu markii ay soo cagaha soo dhigatay garoonka diyaaradaha ee wadanka ku yaala magaalada Toronto ay ku dhufatay baalka diyaarad kale oo baarkinka ku jirtay kadibna ay oloshay waxa la sheegayaa diyaaraddaasi inay gurmadka degdeg ah ay muddo badan ku baktiyeen hase yeeshee aanay waxyeello ka soo gaarin baa la leeyahay dadkii saarnaa diyaaraddaasi cilada ku timi ee keysay inay diyaaradda kale ku dhacdana wali aanay xaqiiqdeeda lahaynin hase yeeshee waxa la leeyahay in lagu guuleystay in diyaaraddaasi lagu badbaadiyay dhammaan dadkii saarnaa kale maanta aan noo hayno ugu dambeeyo wararkeena maantuna waxa weeyaan haweenay muslimada oo ku nool wadanka Austria gaar ahaan magaalada la yiraahdo Salisbury ayaa waxa la sheegayaa inay laba carruur oo ay dhashay geysay meel lagu ciyaaro daansiga oo ay doonaysay inay daansiga bartaan carruurtaasi daansiga baranaysay oo sitay khamaarka madaxa lagu xidho ayaa hablahaasi waxa la sheegayaa in laga soo eriyay meeshaasi lagana mamnuucay loo diiday halkay markii horeba ahayd inay daansiga markay geenayso ay bila khamaar ku geysa haddana waxa la sheegayaa inuu xisbi kamid ah xisbiyada wadankan oo xisbiga la yiraahdo midig dhexe uu si buuxda u taageeray meesha inaan laguba soo gali karin qofku isagoo aan khamaar isagoo bila khamaar isagoo khamaar sitaan daawadayaale waxaana la sheegayaa haweenaydaasi carruurteeda halkaa geysay ee khamaarka sidatay in daawadayaal halkaad warka kala socotaan waa Jeegan Channel TV hadiyo jeeraalana warar degdeg ah iyo wararka cusub halkaas umad kala socon kartaan Jeegan Channel TV aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa daawashadiina iyo waqtigiina aana siiseen hadaan ay haweynta Jeegan Channel TV wararkeena caawina intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan idin leenahay is arag dambe iyo kulanti dambe daawadayaal